السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت احترامك يا كرامة بدن وين سلامينا وقتي هادو وناكسن نرول في عني عافيماد تاما يا ندين رجينينا يا كسور دوادا كنال كينن عافيمادك يا دكتورك عافيمادك قويسك مقالكن waxaynu ku soo qaadanaynaa dumarka ama haweenka qaata xidha isticmaala kabaha dhaadheer iyo dhibaatooyin caafimaad ay ka dhaxlaan ama ay ka dhaxli karaan scientifically marka la ogaaday ee caafimaad ahaan loo daraaseeyay ee laga daba tagay ee observation fiican iyo surveillance lagu sameeyay inay dhibaatooyinkan ay ka dhaxli karaan oo khatarahani ay ka soo gaari karto marka koowaad sababta iyo ujeedka aynu soo qaadanaynaa muuqaalku waa digniin aynu uga digayna haweenkeena sharafta leh inay kabaha aadka u dhaadheer ay si saayida u qaataan oo xilli kasta ay isticmaalaan oo marka ay joogto ka dhigtaan haddaba haddaad kabahan dhaadheer mar kasta iyo xilli kasta aad qaadato oo suuqa ugu baxdo oo weliba haweeneydu mastaafo dheer ay ku goyso waxa ay ka dhaxli kartaa 4 halisood ee caafimaadkeeda waxyeello badan u geysanaya haween badan oo bulshadeena ka tirsan ayaa kabaha waxay u qaataan inay ku xaragoodaan xilliyo fara badan ay qaataan oo meelo kala duwan ay ku tagaan haddaba kabtoo cidhibteedu dheertay ama aanay isku sinayn oo marka aanay hayn mid samniyahoo dhulka ku degan dhibaatooyinkan ayaa laga qaada dhibaatadan inaad ka dhaxasho waxay ku xidhantay muddooyinka kabaha dhaadheer aad isticmaalaysay waxaa kaloo ay ku xidhantay xilliga meesha aad u socoto ee markaad kabaha dheer aad qaadato aad u mastaafada u lugayso inta ay jirtana way ku xidhnaanaysaa labadaasa ay bays u ah inay khatarteedu ay kugu badato si guud waa uga digaynaa dhibaatooyinkoodana waa u sheegaynaa guud ahaan haweenkeena sharafta leh haddaynu ku soo dhowaano qodobka koowaad waxay ka dhaxlaan haweenku wax loo yaqaano waa joint nerve damage meelaha kala goysyada ama lafuhu ay iska galaan ama caqawnyada waxa dul mara nerves ama dareensidayaal ama dhambaal wadayaal maskaxda iyo jidhkaba fariimaha ku wareejiyo gaarsiiya kuwaasi way xanuunaan waxa kale ay dhaawacdaa cartilage-ka iyo carjawda ama nudayaasha isku xidha eeriyadaas laftu ay ka leexato ama ay laftu ay iskugu yimaadaan ee lugtu ay ka leexato ayay dhaawacdaa oo dhibaato ay ka soo gaadhaa waxa lagu arkaa haweeneydu marka dambe inay guud ahaanba inta miskaha iyo qaarka hoose oo dhan u xanuuno inay luguhu ay xanuunaan inay kala goysyada iyo meelaha ay lafuhu iskugu yimaadaan gaar ahaan qaybta canqowga inay aad u xanuunto waxa lagu arkaa haweeneydu haddii xilliga ay dhalinyarka tahay ama aanay aad u weynaanin dhibaatadani haddaanay ku dhicin waxa ay dambarsan kartaa markay weynaato oo waa waran ama waa kantaal u qarsoon oo hadhowta ku soo baxaya waxay kaloo lagu arkaa dhibaatadan ama canqowgu inuu xanuuno oo dhibaatada ay ku sababto xataa inay qanjidhada marka dambe ay xanuunaan oo xididadu ay xanuunaan oo markaa nerfiskii jidhka oo dhani uu xanuuno oo kala goysadu ay xanuunaan oo macdantu ay xanuunto ayaa la arkaa oo sida caadiga ah ee dhacda aragtida caafimaadka lagu arkaa haweeneydana haddii miisaankeedu weliba sii badan yahay khatartani inay ku soo degdegto ayay aad ugu badantay oo miisaankeedu haddii aanu badnayn ama ay qof dhuuman tahay oo aan cayil saayida lahayn waxa laga yaabaa khatartan inaanay horu dareemin laakiin hadday khatartan ku sii wato oo kabaha xilli badan isticmaasho oo maalin kasta kabaha dhaadheer masaafo dheer ay ku goyso ay ku lugayso dhibtan way isku arkaysaa oo way dareemaysaa hadhowtana xalkoodu waqti badan buu qaataa in la xalliyo oo dhibtan la daweeyo oo dawo la siiyo masaaj bay u baahantahay nudayaasha in la soo kabay u baahantahay dhaawaca canqowga gaadha ama markaas seeda iyo carjawda ku dhaca dhibaatadaas in dib loo xalliyo ayay u baahantahay waqti dheer iyo physiotherapy la tiigsaday doonaysaa dhibaatooyin badan ayay ka dhaxlaan haweenku oo qodobkaas ugu horeeyo qodobka labaad waxa la yiraahdo waxay ka dhaxlaan open conduct inay markaas xilliyada qaar ugxansidayaasha haweeneyda ama goobta ugxanta lagu diyaariyo haweeneyda inuu khalkhal ku dhaco jidhka aan balanska ahayn ee aan isku dheeliga tirnay ee haweeneydu marka ay ku lugaynayso inay abuuraan inay khalkhaliyaan qaybtii ugxanta haweeneyda u qaabilsanayd inay isku dhex daadiyaan ugxantii qaar aan bislaanin inay positionkoodii ay ka soo guuraan oo ay ka soo dhacaan taasi waxa ay keentaa xilligii noocii uu dhacayo uurku
iyo xilligii uu dhacayay uurku iyo qaabkii uu dhacayay uurku inay saameyn ku yeelato oo xataa dhakhaatiirta qaar waxay qaarkood sii taakiidiyaan inay arrintaasi ay ku abuuri karto haweeneyda dhinaca dhalmadeeda inay carqalad fara badan ay geliso oo dhibaato badan ay ku abuurto oo hadhowto haddii ay sidan kusii wato ay suurogeli weydo in ugxantii inay bislaato oo xilligeeda ay ku timaado khalkhalkaa dhacaya inay marka dambe ay isku aragto haweeneydu inay ku timaado inay markaas 7 cishe ama 7 periodkii iyo xilligii xayska iyo caadada ay markaa ay weydo oo dhibaatadu saa ay ugu sii badato ayaa la arkaa. qodobka saddexaad ee kabahan dhaadheer ee haweeneyda ku sababaan waxaa ka mid ah loo yaqaano kidney inflammation oo inay haweeneyda kalidu ay xanuunto ama intaa markaa dhabarka ee qaybta kalida xigta iyo qaybta misigta ay aad u xanuunto ayaa la arkaa oo markaa xanuunkaasi aanu ahayn xanuun ay sababayso noolaha ilma qabatinka ahi laakiin xanuun ay sababayaan qaybta positionka uu jirku u taagan yahay iyo postureka haweeneydu ay u dhaqaaqaysa ay saameyn ku abuurayaan oo kaliyuhu ay ka dareento xanuunkaasoo si temporary ula soconaya haddii haweeneydu ay joojiso oo kabaha ay iska saarto ama markaa arrintan ay xaliso oo aanay socodkana dheeraynin ay ka nafisayso oo kaliya xanuunkii iyo dhabar xanuunkii iyo miska xanuunkii ay ka yaraanayaan laakiin waxay ka mid yihiin waxyaabaha ama factor riskiga ka qayb qaadanaya haweeneydu arrintaa inay dhaxasho ayaa runtii la arkaa. qodobka ugu dambeeya ee medical la soo qaadan kama ama aragtida caafimaadku ay soo qaadataa waa abortion can be caused haweeneyda xilliga markaa uurkeedu cusub yahay ee aanay weli markaas aanu adkaanin haddii ay kabahan dhaadheer qaadato mastaafo dheerna ay marto socodkana ay dheerayso waxay dhakhaatiirta qaar ay aad u taakiidinayaan oo weliba runtii ay si ballaadhan ay uga digaan oo ay uga hadlaan inay arrintani ay sababi karto inay ilmuhu soo dhaco oo uu markaa dhicis yimaado oo sidaa ilmaha ay ku weydo haweeneydu ama ay ku soo rido. haddaba 4 qodob ay khatarta ee dhibaatada badan ayaa laga dhaxli karaa haweenkeena sharafta leh inkastaan u malaynayo kabahan dhaadheeri inaanay meelo fara badan ka suurogelaynin oo inaku dad inta badan nolol ahaan dad aad u socdo oo socod badan oo noloshoodu aanay ahayn dadka fadhiidka u badan ama dadka sophisticated life-ka ku nool ee nolosha aadka u sarreeya tegay ayaa waxaan inta badan waqti badan ku lumiya oo dhibaatadooduna inta badan ay ku soo raagta. xanuunadan aynu ka hadlaynaa haweeneydu waxay ku keeni karaan xadaa curyaannimo inay ku abuurto oo hadhowto ay khatartu sii badato oo haweeneydu ay tallaabsanba kari weydo ama ay soconba kari weydo inay markaa neerfiskaas iyo xididadaas haweeneyda dhaawacmaya inay ahaadaan mid cimrigeeda daba socda oo hadhowto ay dhaqaaqi kari weydo inay saamayso tafiirteedii iyo tarankeedii iyo markaa wixii ugu wanaagsanaa ee adduunka u joogtay inay u badiyo awlaad hesho ay saameyn ku abuurayso in khalkhal badani haweeneyda jidhkeeda ay ku imanayaan iyo dhibaatooyin badan inay ku imanayaan ayaa la arkaa maadaama khatarta ay leeyihiin waxa ugu weyn oo loo qaata waa in fashion ahaan loo qaata ayaan filaya ama haweeneydu ay ku xaragooto ama marka ay u qaadato inay dadka iyo socodka iyo waxyaabaha noocaas ay suuqa kula marto. dhibaatada kale ay kabahani leeyihiin waxa ka sii mid ah ama khatarta kabaha qudhooda ayaa waxay yihiin kuwa sii kala duwan mid baa cidhibteedu dheer tahay laakiin salka ay ku fadhiisanaysaa way yara ballaarantay taa khatarteedu ma sii way badanaysaa iyaduna way halis badantay laakiin waxa ka sii dhib badan kabta oo cidhib dheer oo weliba cidhibteedu ay aad u sii dhuuban tahayna waaba halis waa takhalkhalka ugu faraha badan dhinaca ugxanta haweeneyda ku keenta waata neerfiska ugu faraha badan haweeneyda dhaawacda ee dhibaatada ku abuurta waata khatarta ugu faraha badan ku keenaysa in marka haweeneyda ilmaha ay saamayso caloosha ku jira waata halista ugu faraha badan ku keenaysa inay marka haweeneyda kaliyuhu ay xanuunaan oo dhabarku uu xanuuno oo macdantu ay xanuunto ayaa lagu arkaa. haddaba kabahani khatartaas iyo dhibaatada caafimaad bay leeyihiin meel aynu u xulanayno ama marka aynu u xulan karno iyo waxaynu ku sii haysan karno oo haweeneydu ay kula sii joogi kartaa ma jirto. hal cilad baa jirta oo xilliyada qaar haweenku ay u xidhaan inay markaa ay sare ugu qaadaan dhinaca dherarkooda iyo waxyaabo noocaasa arrintaasi wax caafimaadkaaga waxyeelaya oo markaa naftaadii waxyeelaya oo tafiirtaadii waxyeelaya inuu dherarkaaga wax ka bedelo wuxuu dherarkaaga ka bedelayaana
wax la soo qaadan karo maaha ee intaad leegtahay ee ilaahay kaa dhigay inaad ku qanacsanaato oo ku faraxsanaato oo aad ku faanto ayaa loo baahan yahay laakiin inaad waxyaabo kale oo naftii dhaawacaya caafimaadkii dhaawacaya inaad dhererkaagii doonto inaad ku saayidiso mid habboon maaha oo saxsan maaha intaas ayaynu muuqaalka ku soo ururinaynaa waxaad fikir iyo afkaar haysaan noo soo sheega waxa su'aalo qabtaana nala soo wadaaga fi amaanillah wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.